madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Baydhabo isagoo ku wajahan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. mudane Shariif ayaa waxaa garoonka Baydhabo ee Shaati Guduud International Airport ka sagootiyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo uu ugu horeeyo siyaaya xilka madaxweyne ee koonfur galbeed Soomaaliya isla markaasina ah gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabdulqaadir Shariif Sheekhuuna Maye. sagootinta Shariifka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wasiiro xildhibaano odayaal cuqaal iyo waxgarad iyo dhammaan wariyaasha ka howlgala magaalada Baydhabo. safarka Shariifka ayaa yimid kadib markii uu shalay ka tanaasulay xilkiisii madaxweynenimo ee markii horeba uga harsaneyd wax ka yar 10 casho sidoo kalena ku dhawaaqay inuu ka haray tartanka doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi oo loo qorsheeyay 17 bishan inuu ka dhaco magaalada Baydhabo. dhinaca kale golaha isbedel doonka oo ay ku mideysan yihiin musharaxiinta u tarsamaysa doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay iscasilaada Shariifka sidoo kale waxa ay dalbadeen in dib loo dhigo waqtiga doorashada.